dagaalkii Xunayn ee uu nabigu la galay calayhi salaatu wasalaam qabaa'ishii meesha deganaan jiray gaar ahaan qabiilkii la odhan jiray Hawaazin. Hawaazin waa qabiilo carbeed oo mudar u dhalatay Cadnaaniyiina. Hawaazin baana ka sii farcantaa qabiilka Thaqiif loo yaqaano. Thaqiif nimanka la yiraahdo waxay deganayeen iyagu magaalada Taa'if la yiraahdo oo magaalo adag sida loo galaa oo dhul buuralaya ku taala. qaybta kale soo hadhay qabiilkaasi Hawaazin la yiraahdaana Tihaama iyo badda cas dhinaceeda ilaa iyo xuduudda Shaam laga gaadhay ilaa iyo Yemen inta ka dhaxaysa badda cas la dhulkaasi degi jireen. suuqiyo waaweyn ayaa ku ooli jiray dhulka ay Thaqiif leedahay ama qabaa'ilkan ay leeyihiin. waxaa ka mid ahaa suuqii caanka ahaa ee Cukaad la odhan jiray oo ku yaalay Nakhla iyo Taa'if dhexdeeda. waa suuqa ugu waaweynaa baynu odhan karnaa ama suuqaqii ugu weynaa ee lagu kala iibsan jiray alaabta ee tijaarada Quraysh tirada badan iyo waxaan oo dhan ay iibin jireen. waa suuqii lagu qaban jiray macradyada ama bandhigyada adabka carabtii hore waxay isu faandhigi jirtay waqtigaasi reer waliba ninka u gabayaasan iyo ninka u aftahansan ugu khudbad fiican baa la keeni jiray markaas la isu gabay dhigan jiray. waxa ku yaalay suuqii la odhan jiray Dilmajaas ee Carafa u dhawaa Carafaad oo in yar u jira xagga Taa'if ka xiga. waxaa kaloo ku yaalay suuqii Majanna la yiraahdo ee Marri Dhahraan ku yaala oo isaguna Taa'if waxoogaa u jira. waxaa soo suuqaqa oo ah suuqaqii ugu badnaa ee reer Maka ay geyn jireen nimankan dhulkooda ayay ku taalay baa la yiraahdaa. nimanka Thaqiifiyiinta ahina thaqafiyiinta waxay caan ku ahaayeen min oran karnaa dadka faa'iideysanayay suuqaqa carbeed ee waaweyn iyo tijaaradaasi. waxay kaloo caan dhulkani ku ahaayeen dhul beereed buu lahaa oo dhul beereed tira badan oo cinabka iyo rumaanka iyo khudrawaadka iyo waxaas ay ka baxaan. dhan kale waxay ahaayeen nimanka tijaarada isku xidhiidhiya Shaam iyo Yemen dhexdeeda ee xeebtaasi dago oo dhan. waxayna odhan karnaa masaalixda Thaqiif iyo Hawaazin iyo masaalixdii Quraysheed tijaariga ahayd inta badan waa isku xidhnay. Maka iyo Taa'ifna waa laba magaalo isu dhow bay ahaayeen ilaa 90 kilomitir meelaha isu jira. bale waxa la yiraahdaa nimanka Qurayshiintii waqtiyada kulaylaha meeshii u kulayl bixi jireen bay ahayd oo xataa Quraysh lafteeda beeraha waaweyn magaalada ku taala wax ku lahaa. sidaynu horaba u soo maray waataynu soo tilmaamnay nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu Maka inta la aqbali waayay uu ka tagay oo sida Taa'if in laga aqbalo inuu tagay beeray lahaayeen Cutba iyo Shayba. Cutba iyo Shaybana waa ilmo Rabiica oo qoladii lagu dilay mubaarazadii koowaad ee Badar. waxaan odhan karnaa labada qabiil waxa ka dhaxeeyay xidhiidh weyn oo nasab ah iyo xidhiidhnimoba ah. waayo labadan qabiilo ee Quraysh iyo nimankan Hawaazin la yiraahdo oo Thaqiifna ka tirsan tahay labaduba waa mudariyiin awowga shanaad ama lixaad meelahaas bay isugu yimaadaan. waayo awowga lixaad ee Hawaazin waa ka toddobaad ama shanaad ee Quraysheed weeyaan. dadmin ismaal bay isugu yimaadaan. qof kasta oo kutubu taariikh wax ka akhriya ama saxaabada daraaseeya wuxuu garanayaa xidhiidhkii badnaa ee labadan kooxood ka dhaxeeyay iyo sida ay isu guurguursadeen. iyo kalsoonida la isku qabayba waayo waxaad garan kartaa xataa sulxu Xudaybiya markay Quraysh rabtay inay gasho raggii ay soo diratay afka Quraysheed ku hadlay waxa ka mid ah Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi oo ahaa ninkii lahaa maan arag boqor kasta waan u tagay boqorada dunida sida Maxamed loo weyneynayo nimay ciidankiisu u weyneeyaan anigu maan arag ninkii lahaa ninkan ra'yi fiican buu idin soo bandhigaya aqbala. wuxuu ahaa nin thaqafiya. wax si weyn markaa ma aha inaynu tilmaamno labadan magaalo say isugu xidhnay. haddii markaa la jabiyey meeshii la odhan jiray Maka oo Maka islaamku uu furtay jasiirada waxaynu odhan karnaa mucaskarka qura ku hadhay rasmiga ah ee Maka iyo gaarkeeda jooga u baahan in la jabiyo waa qabiilka waa Hawaazin oo Thaqiifna ka tirsan tahay. وانا ميلو النبي إن بدن دينيني عليه الصلاة والسلام وهي وحين لما كمر كي هو ريح حوق لو قد جيسين وهيبا ماشي لبعض يسكت ديي إنه التجابة يحيي وهنا جهروا صوت المامنين النبي وما كنت جاي وحاجة استقبطي يسوى الربا إنه بليه جنا الدين توصبان ده
laakiin waa kuwii diiday inay aqbalaan aqbalidda iyo xataa inay qariyaan odayadoodii waa kuwii diiday dumarkii carruurta ku diray ee dhagaxa lala dhacayay dhiig lagaga keenayay nebiga calayhi salaatu wasalaam quraysh iyo nimankaasi hawaasanna isku diin bay haysteen bale dee laati wuxuu ku yaallaa meeshan ay qoladani haysato allaata walcuza wamanaata haalithata alukhra laataha la sheegayaaba iyaga dhulkooda ayuu ku yaallay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa fahmaya ama waa garan karaya ahmiyadda weyne islaamka ay u leeyihiin haqifiyiintu ama ha noqoto makaanada caskariga ama ta iqtisaadiga ama xidhiidhka weyne iyaga iyo qolada ta ka dhexeeyey ama inay noqon karto cuqbada weyne diinta is hortaagi karta waana dee kuwuu ka cabanayay markay caaisha ku lahayd tolkaa maalintii uxud weligaa maalin ka xun ma la kulantay bay ku tidhi caaisha deetana waa kii nebigu tilmaamay nimankaasuu kala kulmay cabdiyaaleyl iyo kooxdaasi wuxuu kala kulmay inay kaga darray jabkii uxud iyadoo uxud aynu naqaanay in nebiga godu ku dhacay oo dhool ay ka jabtay oo koofiyadii madaxa hoos loogu dumiyey oo wajanaadkii bahalladii ay birihii qaar mudeen oo dhib badan ay soo gaadhay haddana nebigu markay caaisha su-aasha weydiisay wuxuu u tilmaamay tii uu kala kulmay reer taa'if inay kaga adkayd hawaasan laakiin waxaad moodaysay siraacii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh loolankii ka dhaxeeyey inay dhan uga yaro baxsanaayeen oo wixii dagaalla dhex maray beder lahaa uxud lahaa khandaq lahaa waxaasoo dhan inaanay inta badan ka soo qayb gelin baad moodaysa bale waxaynu garan karnaa nin iyaga ka tirsan alakhras ibnu shariiq ninkii la odhan jiro haqafi ahaa laakiin reer banu zahra buu la ahaa xilfi wadaag ayuu xalif la ahaa waa ninkii maalintii beder reer banu zahre ka celiyey dagaalka ee yidhi mar haddii innaga xoolihii laydiin badbaadeen ha gelina dagaala iskaga taga sida daraaddeed waxaa muuqatay inaanay haddana dagaalka caddaanka ee tirada badan lee weyne quraysh ay waday inay iyagu mowqif musaalimiina kaanama yaro ciyaadi yihiin oo kale dagaalka inay iska fogaynayeen laakiin markii maka la furtay waxaa muuqatay inay aad u dareemeen nimankii reer hawaasan khatarta muslimiinta ka soo socota waxaana muuqatay quraysh iyo say daciifka u noqotay amaam almuslimiin iyo sida loo jebiyey cahdigii ay galeen quraysh siday uga baxday macnawiyaadka quraysheed markay yaraatay waxaad kaloo garan kartaa dee cidda kale la jaarka ee kalena in macnawiyaadkoodu iyagana nawcun ma uu yaraan karo laakiin hawaasan dhulkeeda ayay iyana u baqday marka kumay soo degdegin inay maka difaacdo laakiin waxay isku dayayeen un bal xaggooda inay ilaaliyaan si awgeed baa waaqidii wuxuu sheegaa inay soo dirteen basaasiin ay yidhaahdeen bal noo soo indhaindheeya quraysh iyo arrinkeedii wuxuu noqday waxaanay urursadeen markiiba dagaal iyagoo u diyaargaroobaya nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine ka imanayeyna ilaahay buu baryay inuu gaalada indhahooda ka qariyaan warkiisa la helin cidina warkiisa ma helin maka unbay si qaflada u qabteen quraysh markay baabaaday macnaha markaynu soo koobno waxa weeyaan hawaasan raayatu shirkiyada qaatay calankii gaalada qabiilka markaa sidaa ayay noqotay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa ciidan ayuu ku bixiyey oo fatxu maka markuu dhacay lama joojinin ciidankii muslimiinta ahaye waa la kala dirdirayo waa la bixbixinayay waxaa ka mid ahaa bay leenahay si asxaabi taariikh sheegayeen sanamadii hareeraha magaalada ka xigay inuu dhammaantood soo dumiyo oo cuze iyo oo ahaa guri weyn oo reer taqiif agtooda ku yaalo ay nimankani caabudi jireen iyo wixii la noocay la soo dumiyo manaata inuu cid u diro la soo dumiyo saynu hore usoo tilmaamay riwaayaadkaasi sheegaya bahalka dumintiisuna min xayu alaxaadiis waa daciif baa la ydhaha lakiin taariikhiyan waa wax la iska warrami kara bay idhahdeen oo dhib badan ma leh wakhtiyada nebigu ciidamadii uu maka ka saarsaarayay maalan waxaa ka mid ahaa si hareeraha cidda ka xigta oo dhan gacanta loo gaadhsiiyo wuxuu nebigu diray ciidan uu hogaaminayo khaalid ibnu waliid shuwaal sanadkii 8aad ee hijriyada oo ka kooban baa la ydhaha ilaa 350 nin oo muhaajiriin iyo ansaar ba isugu jira waxaanu u diray qabiil la odhan jiray bani jadiima bani jadiima waa xaggan yamanta qabaa'ilkii degi jiray waa yalamlam ayay degi jireen
waa maka koonfurteeda 80 kilomitir meelaha meel u jirta islaamku ugu yeedhay markuu islaamka ugu yeedhay ayaa may sixin inay yidhaahdaan aslamna ee waxay yidhaahdeen saba'na saba'na saba'a waa kelmad ay isticmaali jireen quraysh iyo kuwaasi aanay u isticmaali jireen marka ay rabaan dadka muslimiinta inay caayaan ay yidhaahdaan diintoodii bay ka baxeen oo diin kale galeen calaqal waa kelmadaad moodo nooc min ah waa bidcawnayo kale ay ku jirto oo kaanama asalka laga dhigayo shirkigii oo kale xaggan loo baxayna laga dhigayo islaamnimada inay nooc min bidca tahay dabeetana laakiin iyagu waxay uga jeedeen ereygan inay yidhaahdaan aslamna waanu islaamnay qabiilkani inay islaamaan bay doonayeen khaalid ma sugsugin ama muu fahmin baa la yidhaahdaa nimankan warkoodii dagaal buu ku qaaday badhna waa laayay badhna waa qabqabtay badhkii uu qabqabtay maxaabiistii saxaabada u dhidhiibay habeennimadiibu hadda amar bixiyey maxaabistana in la laayo bacdu saxaaba baa diiday markaa inay laayaan cabdillaahi ibnu cumar uu ka mid yahay iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo way diideen waliba waxaa la yidhahdaa ibnu cawf cabdiraxmaan ibnu cawf iyo khaalid afkaaba ka xumaaday waa diideen kadibna nebiga markii loo yimi calayhi salaatu wasalaam ayaa loo sheegay oo la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ninka kani wuxuu laayay dad waanu islaamnay markii islaamnimada loogu yeedho sabaanaa leh ayuu laayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahaa 2 jeer buu ilaahay bariyey oo beri uga noqday allahuma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalidu allahuma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalidu buu ku celceliyaa la yidhi 2 jeer nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari sida uu tilmaamayo ilaahayow waxaan beri kaaga ahay oo aanan la wadaagin wuxuu khaalid sameeyey wixii khaalid sameeyey ilaa anigu beri baan ka ahay oo lamaan wadaagin laakiin culimmadu waxay yidhaahdaan khaalid saba'anaadii unbuu si xun u fahmay saasi daraaddeed dhiigoodii muu ilaalinin laakiin waa mujtahid mukhtia buu ahaa oo uma jeedin yani inuu dad muslimiina laayo ee wuxuunbuu haystay bay leeyiin waxaanuu laynaya inay gaalo yihiin laakiin saxaabadii kale ee maalan cabdiraxmaan ibnu cawf iyo cabdillaahi ibnu cumar iyo raggaasi raggay ka mid ahaayeen iyagu waxay yidhahdeen saba'anaadatan islaamnimun bay u jeedeen oo way diideen inay laayaan maxaabistoodii inaan isagana ijtihaadkiisa khata in lagu tilmaamay bay yidhahdeen waxyaabaha loo daliishanaya waxaa ka mid ah muu nebigu calayhi salaatu wasalaam ciqaabin khaalid ibnu waliid riwaayadan min xayثu sanad اlaxaadiث yani aan xoog badnayn baa sheega xataa nebigu inuu diyadoodii iyo bixiyey qoladaasi laga laayay haddii uu bixiyana runtii wax la iska aqbali karo waayo axkaamtii dilkii khata ahaa unbaa lagu qaadaya oo looma jeedin dadkan iyagoo muslimiina in la laayo riwaayaad baa jira ibnu isxaaq ay soo ururiyeen oo iyagoo aan faa'iido badani ku jirin oo waxyaabaha qaarkood in loo laayay sababo kale iyagu sheegaya laakiin maaha waxa saxay oo la qaadan karayo si kastaba ha noqotee waxaa la leeyahay ciidamada ay ragga adagaadee nebigu diray 2 ka midii waxay ku baxday baa la odhan karaa dhulka hawaasan iyo taqiif iyo meelahaas ay deganaayeen hawaasan markaa kamay qarsoomin nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii qaabkay wax u wadaan saa daraaddeed waxaa la yidhahdaa ciidan bay urursatay wax allaale iyo waxay ciidan samayn karayeen muddo yar oo 15 casho ku sugan ayay ku soo ururiyeen baan la yidhi ciidan aad u tiro badan iyagoo raba inay muslimiinta waajahaan kuna talagalay inay muslimiinta weeraraan inta aan la soo weerarin ciidanka siday u urursadeen baa la yidhaahdaa waa si tilmaamaysay inay ku talagaleen inay galaan macraka faasila dagaal ama hawaasan dambe aan la arag ama muslim dambe aan la arag labada dhan uun ay uga baxaan si taasi ay u dhacda baa la yidhaahdaa markay dagaal galayaan xataa waxay soo ururiyeen waxay xoolo lahaayeen dumarkoodii carruurtoodii waxba goobta dagaal baa la keenay waxaa la yidhi maanta ama weynaynu gubannaa waxba aanay naga hadhin ama muslimiintaasi weynaynu jabinaa isagoo uu hogaaminayo nin la yidhaahdo malik ibnu cawf الnasri oo waliba waxay culamaai taariikh markay sii warramayaan yidhaahdaan waxaa kaloo ku soo darsamay
بعض القبائل كلو غطفان يا غير كده sida Bukhari uu sheegayo ayaa iyana soo raacay oo nimankan ku soo gargaaray ninkan la yiraahdo Malik ibn Auf qoomkiisii waxa la yiraahdaa qaab sufuufa ayuu soo dagaal galiyay dabeetana fardooleydu ugu soo horeysiiyay wuxuu ku xigsiiyay kuwa lugaynaya wuxuu ku xigsiiyay dumarkii wuxuu ku xigsiiyay arigii geel ugu dambeysiyay yani waxay xoolo wateen oo dhan iyo dad iyo dumar iyo caruurba goobta dagaal buu keenay waxa lagu tilmaamaa ninkani wuxuu ahaa nin soddon jirrada ku jira oo lagu yaqaanay nin dagaaliyahana oo dagaalada ragga ka muuqda kamid ah ayuu ahaaba lagu sifeeyaa laakiin riwaayadan sidaa u sii xoog badnayn ayaa waxay sheegaan qaab dagaalka kan inuu kala taliyay nin odayo weyn oo Duray ibn Simma la oran jiray oday buu ahaa baa leeyahay ninkaas baa wuxuu war codkan iyo waxaan maqlayo xoolahan iyo waxaan dhawaaqayo waa maxay waxa leeyahay reerku madiyo noolba wuxuu lahaa nin baa goobtii dagaal soo fulay dabeetana waxa la yidhi uu u yimo wuxuu ku yidhi waryahay Malik ayuu la hadlay Malik ibn Auf Nasri war maxaa dumarkan iyo caruurtan iyo waxa kan goobtan dagaal u keentay buu yidhi waxaan rabaa buu yidhi ninna inaanu baqin meel loo cararo dambana inaanu jirin waliba waxaad hanti iyo caruur iyo reer balaxay halkay taagan ama difaac ama ha laga qaado inaan idhaahdo buu yidhi laakiin ninna inaanu dib u noqonin taas baan ku talagalay buu yidhi ninkii dhalinyarada ahaa odaygan oo la yidhaahdo odayadii dagaalada inta badan soo geli jiray mujarraba buu ahaa baa leeyahay ayaa wuxuu yidhi war waxaad wadaa wax nin weyn ku hadla maahee nin jabay dumar iyo caruur isma taaga buu yidhi kada daa jabto laa dumar walaa caruur waa xoolo eegi maayo nin jabay waa cararayaaye kada buu yidhi sidaa ha yeelin wuxuu yidhi may kaday maaye hawaadan halkaa maanta ama waa inay guulaysataa ama waa in laga guulaystaa laakiin inay dib u noqdaan ma jirayso هذا علماء التاريخ waxay sheegaan ilaa xad bay soo gaarsiiyeen uu leeyahay ninkan yara dhalinyarada xoogganaya dagaalyahanka ciidanka hogaaminaya ama way isdilaya maanta ama ra'yigayga la maqlaya adoo odayga ra'yigiisa waa la diiday waxay noqotay wiilkan dhalinyarada ciidamada hogaaminaya intiisa la qaato alwaaqidi aynu naqaano inaanu xagga sanadka xoogganayn ayaa wuxuu ku sheegaa ilaa 20,000 inay ahaayeen ciidankii nimanka kale ay soo urursadeen waxaanad moodaa ibn Hajar laftiis fil fath inuu u iilanaya ra'yiga waaqidiyo kala waayo wuxuu odhanayaa hawaazan waxay keensatay ciidan muslimiinta laban laabkeeda muslimiintuna waa kuwii 10,000 meelahaas ku soo galay Makka macnaheedu waxa weeyaan ra'yiga waaqidi baad moodaa inuu xaqiisa isaga weecday ala kulli xaal waa ra'yi jira laakiin aan sanad xoog badan ku taagnayn حديث حاكمكم مستدرك كو أرورينيو وشواهدنا له الباني والصحيحين بمجموع طرقه أي وحاوت الماما يا نبي عليه الصلاة والسلام إنه الدري من عبد الله بن أبي حضر الأسلمي اللي يلاحظه والدري إنه عدو قبل صاء يوركو ضيون الصور رابعيه يعني كاسيو يمي إنما كان قبيل كان سورة صدية إذا ما ضم بصور حمري maalin ama 2 casho ayuu soo joogay dabeetana uu ku soo noqday muslimiinta isagoo waramaya markii ninkaasina warka uu keenay waxay qaateen muslimiintu marka ayna intii la diyaar garoobi karo in la diyaar garoobo hub iyo ciidan wixii loo urursan karaba nimanka in loo urursado riwaayat taariikh waxay sheegaan xataa nabiga alayhi salaatu wasalaam inuu qurayshtii xataa aan wali islaamin inuu hub badan ka urursaday oo ka sii amaahday qaarkood مثلا Safwan ibn Umayya ninkii la oran jiray waxa la yiraahdaa 100 dirac yani dirac waxa la yiraahdaa birtan la gashaday ee adag ee seefta ay qofka soo maraynin birahaasi dagaalka la xidho 100 kamid ah yani 100 nin qalab dagaal ay gashan karaan ayuu ka sii amaahday baa la yiraahdaa isagoo wali ninkani mushrika waxay sheegaan culimada taariikhda inuu weydiiyay xataa nabiga alayhi salaatu wasalaam oo ku yiri markuu wax ka amaahanayay wuxuu yiri baa la yiri maqasdan baan soo caariya xoog baad iga qaadaysaa alaabtayda mise waa caariyo waan ku sii caariyay waa ku sii deymiyaa ama hiya
wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam say riwaayadkaasi sheegayaan maya waa caariya waa shay lagaasii isticaaraysanayo lagu soo celinayo غزوة حنين كدبنا وسو عليه بالغ تلمام حديث ابن ماجه النسائي bay warinayaan inkastoo sanadkiisu aanu xoog badan lahayn ibn abd albar isagoo riwaayad aan sanad lahayn isna wuxuu sheegay inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam Huwaytib ibn Abd al-Izza 40,000 oo dirham inuu ka sii qaatay ama Awf ibn Nawfal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib 3,000 oo waran inuu soo siiyay muslimiinta waxaasoo dhan marka la isku wada daro waxa ay sheegayaan wixii muslimiintu ay xataa gaalada ka soo qaadan karayeen ama deyna ama hub la sii qaata ama wax la amaanaystaa inay soo amaanaysteen meelaha kalena qadiyadan Safwan waa masaa'ilka ay u dalishadaan mushrika ma la adeegsan kara dadka muslimiinta ah laakiin waa marka على الأقل waa inay noqotaa mar aanay de ra'yi iyo tala iyo xoog toona waxba ku lahayn qof ama fard iska daba socdooy xaq horena waan ku soo maray isagoo nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam muslimiintu inay soo diyaar garowda waqti badan may qaadan iyaga laftoodu way ciidankii muslimiinta ee badnaayeen ma ka soo galay dib badan ilaa may kulmin baynu ilaa xogaagii dagaalkii Khandama ka dhacay mooyaane marka waxa loo soo ururiyay ciidankii inay dib u soo muwaajahayaan maalintan Xunayn iyo xaggeeda inay soo qabtaan waxa la yiraahdaa 15 Shawaal meelaha markay mareysay al-yawm al-khamis min Shawaal baa la yiraahdaa 5 Shawaal markay mareysay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo 10 maalmood deganaa magaalada Makka ilaa 15 cashay sheegaan ayuu soo baxay waxaanu soo gaaray baa la yiraahdaa meesha lagu tilmaamo Xunayn شنع شكدي من لبدان meelood mana aha bay leeyeen meel loo kala socdo waqtiga intan leeg laakiin waxa muuqatay bay leeyeen nabigu markuu Xunayn ku soo dhawaadaba inuu ciidanka aayar raray oo socodku xagga dambe inuu aayar ka soconayay way Xunayn waa meel 20 kiiloomitir meelaha u jirta marka la eego Makka waliba waxa la yiraahdaa markii hore Makka laga soo baxay ciidanku uu dheereynayay sida xadiiska Abu Daawud iyo Xaakim bay warinayaan uu sheegayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa la yiraahdaa magaaladii Makka ahayd Atab ibn Usayd saxaabi la yiraahdo ayuu kaga yimi oo madax uga sii dhigay asxaabu siira siday wariyaan iyadana riwaayad si xoog badan ahayn ciidanka muslimiinta ee meeshan maraya waxa la yiraahdaa wuxuu gaadhayay ilaa iyo 12,000 bay ku sheegaan كو 10,000 وكوي ولا soo galay Makka oo iyaga xadiiskii saxiix ee Bukhari bas uu sheegay 10,000 askari waa ciidankiisii uu Makka la soo galay 2,000 baa la yiraahdaa waa kuway hadiyo goor culimada taariikh ku tilmaamaan al-khulaqa dadkii la iska cafiyay reer Makka wixii ka islaamay ayaa 2,000 ka soo raacday baa la yiraahdaa marka ciidan 12,000 meelaha ku dhow iyagoo ah ayay soo baxeen baa la yiraahdaa وصعب لما التاريخ يوريها لكن كل ما وحنا قرن كرناون مكة حنين waxay ka mid tahay macaarigtii ugu weynaa ee islaamku uu galo ahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam uguna khatar badnayd nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dadaalay inuu ciidankan ilaaliyo goor salaad cishaa bay meesha yimaadeen waxaanu uu saaray axad saxaaba inuu bal habeenka kan meesha eego soo ilaaliyo isla markaa inuu noqdo maxaa la yiraahdaa sahan saxaabigii uu baxay ciidankii uu soo eegay uu soo noqday isagoo tilmaamaya sida ay u badan yihiin hawaasan oo xoolaheedii iyo wixeediiba wato waatimi nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada niyadda u qaboojinaya buu wuxuu yidhi tilka ghaniimatu lmuslimiina gadan in shaa allah waxaa soo aragteen oo dhamme haddii alla yidhaahdo waa ghaniimadii muslimiintu ay helayeen berrito صحابي اللي هذا أنس ابن أبي مرثد الغنوي أي يسوي حقوق دقيق حديث أبو داود التلمام أيه إنه هبينك كان وسووا قاعد كقاله مسلمين تنايس كسيح له والنبي إن بدن كلا دردارني ورؤيا سيحني إلى صلاة الصبح لقاعد يعيد كأنه سفي عن وادية ونكسن وهذا مهمة دي سيوو قتينك كاني
nebiguna calayhi salaatu wasalaam jannu u yaboohay markaas insha allah jannaad leedahay. ciidanka muslimiinta markan meesha maraya waxaa la yidhaahdaa dadkan iska soo raacay maka ka soo raacee khulaqaaga kani raad xun bay ciidanka ku dhex yeesheen, waayo waxay iska ahayeen dad imikun soo islaamay, dad caadaadkoodii hore jaahiliyada aan weli ka wada foqin. ilaa xad waxaad ka garan kartaa dhexda markay muslimiintu soo socdeen waxay soo mareen meel la yidhaahdo daatu anwaar oo geed weyni uu ku yaallo, oo carabtu intay qawsaska iyo waxadka iyo inta marya sudhato soo Soomaalidan xabaalaha markay marto marada yar ku xidhan jirtay waxaasoo kale intay wax ku xidhaan ayay dabeetana baryotin iyo wax ka dhex samayn jireen. markii la arkay gaalada meesha tan ay warma sursuratay wax ku xidhxidhatay caynkana ay waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo innagana daatu anwaar inoo yeer geedinana wax sursurano caynkan inoo samee. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi subxaana allah kama qaala قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من قبلكم. إلهي باحمكه فانبو النبي عليه الصلاة والسلام وحناقوها الله يسهل ووحي أي يراهدين خير بنو إسرائيل نبي موسى يكون يراهدين خير بنو إسرائيل مكي إلهي وفرعون كبد بادية بدي لغصور نافي أي سوامر ينقار سنم يرى عبدية اجعل لنا إلها بينهم كما لهم آلهة إننا إله يرين عابدين والسماء بيكون لها موسى سيقولنا وأولاده والشرك يقال لموت المامية. إذا وحن حبالها لصرصر يردرتن لغا بركيستي وحاس الدين تسالكمان وحاس خرافات يقال وركي ما هو السلام معها إسلام كوركي سلوك حقوق وبين قفك مسلم في إلهي ومبريا إلهي بانكو حلي جيد يدقح يضد يعينكم حدنا إلهي بكو حلي سبحانه وتعالى إلهي بانو بريا وحكسك يلا بريانا ما جرتو نبيكو مركاسو وحولي إله نفتيدو قاعدتيسا كو جرتان كل دارتين sunnadii dadkii hore maray jidkay mareen unbaa ku socotaan idinkuna. yani tani waxay tilmaamaysaa baa la yidhaha dadkan cusub iyo waxaan iska soo raacay inaanay weli caqiidadii saafiga ahayd iyo islaamnimadii si wanaagsan u degin ee uun dee dad iminka soo islaamay oo waxoogaa shirkiyaadkoodii hoosta iskaga wadwata inay yihiin. waxyaabaha bay yidhaahdeen maalinta tan muuqday waxaa ka mid ahaa way is eegeen muslimiintii iyo tirabadnidoodii bay arkeen dad dhowr iyo 10 kun oo meesha maraya. markaasaa mid ka midii wuxuu yidhi baa la yidhi maantun baan tira yari laynagu jibin. yani dagaaladii hore intaynu ku geli jirnay nambar inta ka yar baynu ahay ee maanta saynu u tiro badan nahay tiro badni maanta tira yari laynagu jibin maayo. asalkuna wuxuu ahaan jiray muslimiintu say waxay dagaal geli jireen oo dhan marna tiro badni iyo xoog badni kumay guulaysanay ilaahay baa nasriga siiyey. ilaahay baanay tala saaranayeen oo ikhlaas iyo cibaado iyo ilaahay tala saaradkii ayay ku guulaysanayeen. maanta laakiin waxaad moodaa in cududooda u yara muuqatay oo halkii ay markay dagaalada imaadaan iyo markay ilaahay baryayeen oo ilaahay u tala saarayeen maanta waa isbideen oo waxay yiraahdeen cududoodii waa u muuqatay oo waxay dhaaheen maanta farayari idin ugu jabin mayso. waxaanad moodaa dagaalka qaybtiisa hore in ilaahay iyana loo tala saaro la yidhi xooggiina waa kaasi wax iskaga celiya حرسك ما يعلن وكيله قرآن كتل مامية. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وحاصل ستان بقى إلهي لمالتي حنين إذن عجب قال سيتر بدني دين سوح بقى أنا إذن كثرين بقى إلهي سبحانه وتعالى وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إلهي وحلي أولوك إذن قعد اليوم وحا إلهي الذي سب الله عنيك يا markaas tabto dhulku uu yaraada wadooyinka iyo surimada waaweyn ayuu baa cidhiidh kugu noqonaya meelaad ka baxdo baad waaysa. ilaahay waa quraanka wuxuu ku leeyahay wadaqat alaykum al-ard dhulkii baa idin ku cidhiidhiyoomay iyadoo dhulku ay aad u ballaadnay thumma wallaytum mudbiriin waa dabarjee waa yaacdeen baa ilaahay leeyahay idinkoo sii daba jeediyey. nabiguna calayhi salaatu wasalaam qadaayadkan markuu dareemay waxaa la yidhahaa ilaahay xaggiisa uu weecdo isagoo ilaahay baryaya اللهم بك أقاتل تاهية يا وير الله ميدا. تبتنا وح النبي جوجا ورمي بالله سا حديث الدار مسلم كيسي أحمد باي كورني يعني ومظهر تربدني ده عجب جلسي وتبتنا إلى هي وجاركو استحامي. يعني على كل حال أصل خوح لها أي مسلمين تكون جولي سنة إن تنصر الله ينصركم. أصل كاسبه حوك لما تجري هذا إلى هي وجرجرتان ويسقى بريدان وكتير سطان وكحرمتان كدم بيسان إلهي ويدين كرجاري أصل كاسبوها.
laakiin dee kollayba waxa isweydiin leh muddo yaroo dee tobaneeyo casho ah waxaa soo dada in la tarbiyeeyo wax dhigistiyo caqaa'idiyo wax waliba ay xadkaasi gaadhaan may dhicin tasawurkii saxiixa iyo tawakulkii khaaliska ilaahay la tala saaranayay waa yaro luntay baad moodaa iyo xoolo islaha kullay muslimiintuna waa guulaysan nimankaan cidina is hortaagi kari mayse haniimooyinka iyo waxaan la helayo wax ka soo qaadeen oo halkay muslimiintu inta badan iimaanun billahi wa jihaadun fii sabiilihi ay u baxayeen inay marka kan u muuqatoba dadka badhin uu soo baxayo hunguri iyo wax la nooca waxaa la yidhaahdaa macrakadu qaabkay u bilaabatay insha allah waynu tilmaami doonaaye laakiin maca hungurigii waa socon waayo markii koowaadba waa lala fuqay muslimiintii markii lala fuqayba waa yaaceen dabeetana waxaa la yidhahdaa nimankii meesha marayay ee quraysheedna mid ka mid ah mu'arikhiinta qaarkood waxay ku tilmaamaan safwaan ibnu umayya walaalkiibu hakalda la odhan jiray qaar nin kale ay ku sheegaan ayankan saasuu eegay baa la yidhi muslimiintii kooxaha kan waxaa la yidhaha iyagu dagaalkiiba may gelin xagga dambey fadhiyeenoo kolba inan yar intay diraan bay odhanayeen war bal waxaa meesha ka dhacay soo eega dabeetana waxay arkeen baa la yidhi dee iyadoo lala soo kacay markii koowaadba muslimiintii intuu sidaa u ega midibuu wuxuu yidhi alaa batala sixru lyawm wixii sixir laynagu haystay maantay bureen buu yidhi yani waa ka kooxdii lagu kala tegey mid kale waxaa la yidhi markuu kani warkaa lahaa baa la yidhi walaalkiibaa hadlay baa la yidhi safwaan oo wuxuu ku yidhi fawallahi laan yarubanii rajulu min qurayshin axabu ilaya min an yarubanii rajulu min hawaazin waar waxaad ku hadlaysa inuu madaxii noqdo i xukumo nin qurayshun ka tirsan baa aniga ii dhaanta min reer hawaazani inuu xukumo buu leeyahy yani kani xaggii qabiilku ka fakeraya wuxuu leeyay nebi maxamed inuuna xukumaa baa dhaanta hawaazun inay noo talise waxaanaad sheegayso ma aqbalayo waxaa la tilmaamaa xataa muusa bnu cuqba asxaabu siira nin ka midii sida uu sheegayo inkastoo sanadka rag majhuula iskaga jiraan koox xagga dambe joogto abu sufyaan iyo safwaan ibnu umayahan iyo xakiim ibnu xazaam iyo kooxdaasoo xagga dambe joogto eegaya bal cidda guushu raacdiya waxaas ayaa mid ka midii markii la sheegay in lala soo kacay nimankii ayuu arkay sida foosha xun leh ee muslimiintu ay u jabtay markaasuu intuu saa u eega buu ihi laa tantahi haziimatuhum duuna albaxr kuwani siday u jabeen istaagi maayaan ilaa badda casi soo celisa mooyaane yani ciidankani siday usoo jabeena loo wado meeshay celin doontaan waa badda cas waxaa ka muuqata meesha tan markaa in dadkan tirada badan lee kale iska soo raacay iyaguna safkii ay khalkhalgeliyeen aan wax fiicani ka muuqanin haddaynu eegno macrakada iyo dagaalku siduu u dhacay nimanka hawaazan la yidhahda muslimiinta waxay uga soo dheereeyeen dooxada tan xunayn la yidhahdo xunayn waa meel dooxa ah oo dhir badan hareeraha ku leh ninka kan la yidhahda malik ibnu cawf annasari ciidan buu soo kaxeeyey dabeetana dooxadu hareeraha ka geliyey kamaa-in buu ka dhigay koox yaroo tiro badan buu ka dhigay dabeetana gamuunlaydiisii buu meeshaasi geliyey wuxuu sii qabsaday meelihii istaraatiijiga ahaa oo dhan muslimiintuna markii ay salaadii subax tukadeen kadib goorqalasabay goor horays yidhaahdeen iyana meesha gala laakiin iyadoo meeshaba la degan yahay ayay sileeyihiin soo gala wuu soo daayey markaasiyo wuxuu yidhi markay meesha safka soo galaane soo buuxsamaan marra waaxida dhan walba leebabka iyo gamuunka ha lagu wada dhajiyo ciidankiiyoo iska soconayo meesha soo dhex socda ayaa markaas dafca waaxida baa lagu qaaday bahal weerar ah oo dhan walba gamuunka lagaga nabay markiiba baa la yidhahaa fardooleydiiyo xaggan hore soo socotay ayaa lala soo fuqay markii dhan walba gamuun laga geliyey waxay ku tilmaamaan culammadu markan hore ciidanku fardooleydu xoogaa ay marka hore ula yara kacdo nimankan hawaazan qayb ka mida la yara kiciyey laakiin meelaha markii laysla soo gaadhayba dib baa loo soo jebiyey muslimiintii dib baa loo soo jebiyey iyagoo markii hore moodayay muslimiintu inay dee kooxa yarar malaynta marka hore helan hore ula kaceen sida xadiiska bukhaari uu sheegayo kale ay marka hore muslimiintu hore ula kaceen oo laysidhi hawaazan yani si dhabaa u jebiseen ayuunbay mar qura leebka lagu boobay oo si hayru caadiya loogaga boobay dooxa dhinacyadiisii
dadkii muslimiinta badh ka mida baa markaa yaa isbilaabay. weliba waxaa la yidhahdaa dadkan sidan u tirada badan le qaar badan oo ka mida baan hubka wixii la xidhxidhnaa iyo wixii madaxa laga gashan jiray iyo waxyaabaha kan dadka badh baan sidan baa la yidhahdaa. calaa kullin nimankani waxaa la yidhahdaa leebka sida loo ganano xoog bay u yaqaan. waxay noqotoon inaanay leeb ganin ilaa inay mid ku dhajiyeen mooyaane. dabeetana waxaa dhacday in muslimiintii lala soo kaco sida albaraa ibnu caazib oo saxaabi ka mida raggii dagaalka ka qayb galay uu sheegayo. wuxuu leeyahay markiiba waxaa lala soo kacay buu yidhi fardoolaydii muslimiinta. dabeetana kuwii cagta ayaa lala soo kacay. tulaqaad iyagu way yaaceen buu yidhi nimankii markaa dad ka soo raacaya caraabtii iyo reer baadiyii waxaasoo dhammi markay isla jabeen baa ciidanka intii hadhayna soo jabtay. may laazimin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo koox yar mooyaane. waxaa la yidhahdaa koox yar baa nebiga ku soo hadhay calayhi salaatu wasalaam. kooxdaasi waa dagaalanto dagaalkii wuu socday. jawladii hore min waaberigii ilaa cishihii baa laysaystay. dabeetana habeenkiibuu haddana dagaalkii sii socday. habeennimadaasaa lala soo fuqay baa la yidhahdaa muslimiintii. maalintii dambe dagaalkii wuu dhib batay, wakhti aad u kulula way ahayd. waxay u muuqataa un in muslimiintii lala kacay. meel wakhti kulayla bay ahayd, aad u cadceed badan oo boodh badan oo aanay si fiican u garanaynin, oo riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan xataa aragtidiiba haydhxaydh naga gashay. waa la isla kiciyey. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu fuushanaa baa layidhi baqladiisii baqal uu lahaa ee duldul la odhan jiray. waa tii muqoqoftu soo hadiyeeyey ayaan rajaynaya tan duldulka la yidhahda inay ahayd. baqashaasi buu fuushanaa. mar qurana ma soo noqonay, xagga ciidanku kusii cararayay. waxaa la yidhahdaa laba saxaabiy oo la fadhiya nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo xagga ciidanka kusii socda uuna sii socda. marka horebana waxaad garan kartaa inaanu nebigu ku talagelin inuu cararo iyo warka kan, waayo farda wuu haystay haddana faras ma fuulin. waxaana la yaqaanaa dee baqali kar iyo far inaanay samaynine dhan qudhan inay isaga soconayso. inuu meesha laazimo. nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo baqashiisa haystuu ciidanka sii dhex jeexayay, isagoo weliba dhawaaqayo aan isqarinaynin oo leh ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib, isagoo nebigu le calayhi salaatu wasalaam anigu nebigii baan hoo been ma aha, waxaan ahay ina cabdilmualib maxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmualib ayaan ahay isagoo leh. waxaa la yidhahdaa adeerkii cabbaas iyo ninkii kale ay isku reerka ahaayeen ee abu sufyaan ibnu alxaaris la odhan jiray ayaa midna hoggaanka hayay baqashan yar, midna meelahan hayay oo ay ka ilaalinayeen inuu nebigu xoog u sii cararo, isaguna uu hore u sii wado xagga ciidanka uu sii socday. halka qoladana ay yaacayso, isna uu xagga ciidanka kusii ordayay, qoladan inay xejinaysay. muslimiintii markaa qaybo ka mid ah oo raggii soo hadhay gaar ahaan ee ansaartii iyo muhaajiriintii ka mida qaybo ka mid ah ayaa iyaguna dib u soo yaro gurtay. waxaa la yidhahdaa ciidan aan badnayn baaba nebiga ku soo hadhay calayhi salaatu wasalaam oo cabbaaskaas iyo abu sufyaan ibnu alxaaris. abu sufyaankani waa nin islaamnimadiisu fiicnaatay, waa raggii dhexda ku soo islaamay. markii waa ninkaynu lahayn gabayaabuu ahaa muslimiinta soo caaya oo nebigu markuu maka iyo madiine dhexdooda soo socday intaa fatxu maka dhexin raggii islaamay buu ka mid yahay, laakiin waa raggii islaamnimadiisu fiicnaatay. koox yaroo labadaa nin iyo abubakar iyo cumar iyo cali iyo meelahaasi ay ka mid yihiin baa la yidhaahdaa. say culamaai siira ay sheegaan, sanad saxiixa ibnu isxaaq uu ku sheegayo jaabir ibnu cabdillaahi warinayo oo raggii macrakada ka qayb galaya. waxoogaa caynkaas ayaa ku hadhay. nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu ku yidhi adeerkii alcabaas ibnu cabdilmualib oo nin aad u cod weyn ahaa, jahwariyu sawt ahaa, ayuu wuxuu ku yidhi waryeedh oo waxaad ku yeedha saxaabadaydii u yeedh. dabeetana waxaa la yidhahaa rag gaadhaa maalintaasi loo yeedhay. asxaabi shajara u yeedh baa la yidhi. baycatu ridwaan raggii nebiga geerida la galay kula bayactamay inaanay cararin. asxaabu shajara u yeedh. waxaad u yeedhaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ansaar u yeedh. waxaad u yeedhaa buu nebigu yidhi ku sii gaar yeel oo reer bani alxaaris, waa jilib ka mida khasrajiyiintii ansaarta, reer banu xaaris u sii yeedh baa la yidhi. dabeetana wuu yeedhay. cod aad u weyn oo dadkii oo dhan maqashiyey ayuu ku dhawaaqay baa la yidhi alcabaas ibnu cabdilmualib. saxaabadii markay maqaleen cabbaasoo xagga dambe uga yeedhaya ayaa laysi soo taagay. raggii waaweynaa ama raggaasi asxaabu baycati ridwaan dib bay usoo wada noqdeen baa la yidhahaa, iyagoo dib nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu soo noqonaya. markiiba 80 ama 100 rag ku dhodhow baa meesha soo galay. waxaa la yidhahdaa
ciidankii yaacay xataa dee ciidanku markuu jabo waxaad iska moodaa in xooluhuna xataa yaacan iyo waxa la fuushay aan la joojin karin ragga wixii joojin kari waayey baa la yidhahaa fardahoodii ama awrtoodii ama waxay fuushanaayeen ninkii waabin karee celin karayna wuu celiyey ragga intii joojin kari weydana inta iskaga booday bay kala hadhuun warmahoodii iyo seefahoodii oo neefkii xoolaaba iska sii daayeen dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam bay dib ugu laabteen asxaabu baycati ridwaan iyo ansaartii iyo de raggii diinta usoo gargaaray ee badariyiintii iyo raggii la yaqaanay baa dagaalkii markaa si dhaba u galay kooxdii tulaqadii iyo intii awalba meesha qastayna waa weydaarato waa yaacday yani kooxdan aan wax badan wadani raggii islaamka usoo halgamayay ee marka horeba gacantooda ilaahay halkan kusoo gaadhsiiyey subxaana wa tacaala ayaa dagaal rasmiya galay isagoo uu nabiguna calayhi salaatu wasalaam u ducaynayo innaka in tasha laa tucbad bacda alyawm ducooyinkaasi mar labaad bay soo wariyaan culammadu inuu markana nebigu akhrinayo calayhi salaatu wasalaam weliba waxaa lagu tilmaamaa xataa sida saxiixu lbukhaari iyo muslimba ku qoran inuu nebigu ka degay baqladii yaraydna xataa markuu ciidanku soo tarabato oo uu dhulka soconayay oo marka ay dagaalku aad u adkaado nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ku gagabanayeen saxaabada qaarkood markuu dagaalku aad u adkaado markii codkaasi dib uu yeedhay ee saxaabadaasi waa la soo wada noqday labayka labayka iyadoo la leeyahay ninkii joojin kari waayey wuuna waa iskaga soo daadegay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la dhinac yimid dagaalkii baa dib loo bilaabay alaana xamiya alwatiis waa markaa riwaayaadkaasi nebiga laga sheegay calayhi salaatu wasalaam hada xiina xamiya alwatiis xadiidkii saxiixu muslimku siduu tilmaamayay waxoogaa ciid u qaatay baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana uu ku seydhiyey gaalada isagoo le shaahat alwujuuh inhazamuu rabbu muxamed isagoo le nebigu calayhi salaatu wasalaam jabe maxamed rabbigii baan ku dhaartee waana ka ilaahay subxaana wa tacaala kaga warramaya qur-aanka ee markii aayaadkan hore la tilmaamay wayowma xunaynin ida acjabatkum kasratkum falam tugni cankum shaya wadaaqat calaykum alardu bima raxmat uma wallaytum mudbiriin ilaahay wuxuu ku xigsiye aayadda uma anzala allahu sakiinatahu calaa rasuulihi wacala almu'miniin ilaahay baa ku soo dejiyey xasilloonidiisa rasuulkiisa iyo kuwa mu'miniinta ah waanzala junuudan lam tarawha ciidamo aydan idinku ogaynna ilaahay baa soo dejiyey wacadaba aladiina kafaruu allaa cadaabay kuwii gaaloobay hawaazin markii raggii ragga ha u soo jeestay iyana fadhiyi kari waayey mar labaad baa lala foqay markaasi hawaazin oo dib loo kiciyey oo weliba si aad u foolxun le loola kacay ilaa iyo firdhadkoodii meel walba uu ka dhacay oo wixii uu dumar iyo xoolo iyo soo ururiyey meeshaa lagaga wada qabsaday markay yaaceenna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka daba diraa la yidhi ciidamo sii jebiya oo koox walba dhankeeda u sii eryada manay u suurtoobin inay dib isu soo urursadaan waxaana loo ogolaaday nin waliba cidduu wax ka furto inuu leeyahay salb almushrik liqaatili ninka nin ka furta wixii uu ka furto isaga ayuu leeyahay wuxuuse nebigu calayhi salaatu wasalaam ka nahiyey markuu arkay iyagoo gabadh dilay in dumarka la laayo ما كانت هذه تقاتل بالنبوي وارتني مدريرين محك الشيء يعني في الشريعة ما بنانا دمرك عرورتي ويضيد الدأدي عند قال كجرين يوحى إلا الله يا ما يبنانا النبي عليه الصلاة والسلام قوانا وكعلي قال دي نسفي عن بالو تشبي ان مالمها كان معركات كان dadkii ka qayb galay waxa kamida haweenay Sulaym islaantii la oran jiray waxaan filayaa islaantii Talha inay ahayd Abi Talha oo iyadoo deesitaba toorayar ayuu odageeda arkay markaasuu nabaashan waxa ku falaysaa gaaladan maanta islaamay tiri caloosheedkiisa soo ridi dabeetana nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ya rasuulullaahi wuxuu barkaatu Sulaym seeta hal video yare maxaad ku falaysaa baa leeyahay waxay tiri waxaan isleeyahay wixii gaal ku soo dhawaada adbeerka ka dilaacisid maanta nabigu ku qoslaa leeyahay iska dhaaf hawaazan waxay sheegaan dhowr iyo 7 in laga dilay reer bani malik bani auf oo qura reer bani malik baan u jeedaa oo saqiif ka tirsan sida ibn isxaaq uu sheegayo in kastoo riwaayadu bidun sanad iska taama liidato axlaaftan alla baa laga dilay buu leeyahay على كل حال هزيمة روايات قاركود waxay sheegayaan 300 in laga dilay nimanka reer banu malika oo Zubayr ibn al-Awwam
awtaas wixii uu ku gaadhay inuu meelaha ahaa dadkii uu ku dilay yani markay meesha tan jabeen waxay galeen baa la yidhaahdaa meel kale oo awtaasa la yidhaahdo dabeetana xarakaatlmuطaarada unbaa ka sii daba timi ilaa iyo meel kasta laga saaray abu طalxa ayaa la yidhahdaa keligii maalinta tan sida xadiidka abu daawud uu sheegayo abu طalxa keligii maalintan 20 buu dilay baa la yidhahdaa uu furtay 20 gaal buu dilay oo salbigoodiina uu soo furtay keligii si kasta ha ahaatee waxaan leenahay nimankii hawaasan marka la isku daro qabiilka iyo furuucdiisii waxaa ku dhacay jab aad u weyn dad aad u badan rag aad u badan waa laga laayay cid badan waa laga dhaawacay waxa ay sheegaan dumar iyo carruurta laga qabto quraahbaa 6,000 gaadhaysay bay yidhaahdaan 6000 saciid ibnu lmusayib sida uu warinayo wuxuu ku tilmaamayaa meelaha si dad gaadhaya in laga qaaday riwaayaadka taariikhdu inkastoo aanay sanadkoodu xooganayn ibnu sacad fii طabaqaati biduuni sanad uu ku aroorinayo xoolaha laga qabsaday oo qura wuxuu ku sheegayaa dee waxaan la tira koobi karayn 4,000 oo wiqiyadood oo fida ah 24,000 oo neef oo geela 40,000 oo neef oo adhiya dee waa qabiilkaas ka dhan ee 20,000 nin soo dagaalgeliyey wuxuu xoolo lahaaba waa la soo qabtay geel iyo adhi iyo fida iyo waxaa doontaba dheh wuxuu xoolo lahaa iyo lo iyo khaylba wax walba waa laga soo qabtay baa la yidhahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii xoolaa intuu ururiyey ayuu wuxuu yidhi jecraana geeya ilaa iyo intuu ka soo noqonayay طaa'if muslimiinta waxaa lagu tilmaamaa ibnu isxaaq siduu sheegayo ilaa 4 baa ka shahiidoobay buu yidhaahdaa kooxna waa dhaadhaawacmay aduu dhaawac buu soo gaadhgaadhsiiyey buu ku tilmaamaa malaa saxiixu lbukhaari wuxuu sheegayaa kooxaha dhaawacmay malaa'ig ka mid ahaayeen abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo cabdillaahi ibnu ubay ibnu abi awfa iyo khaalid ibnu waliid iyo raggaasoo dhan in dhaawacyo khafiifi aduu dee waxa ugu badanee nimankan ku dhacay leebabay ahaayeen marka leebabkaasi wixii ay dhaadhaawaceen laakiin waa khasaare iska fudud marka loo eego khasaaraha ciidamadii kala gaadhay ciidankaa qurayshe ee hawaasan ee jabay wuu cararay jabkoodii dhowr meelood buu u qaybsamay qola nakhla bay qabatay qolana awtaas meel la yidhaahday tagtay qolana طaa'if ayay gashay buuraleyda iyo dooxooyinka unbaa la kala xulay ninkii malik ibnu cawf la odhan jiray lahaa raggu yuu jabina waxaa ilaashado isaga iyo ciidanu wataa waa jabeen oo waxay u kaceen طaa'if magaaladii طaa'if la odhan jiro magaalo aad u xasiin ah ciidamo kale awtaas meeshaa la yidhaha awtaas waa waadi طaa'if iyo xunayn dooxa u dhaxaysa ee awtaas la yidhahda ayay galeen koox kale waxay gashay iyaduna oo banu ghiira min haqiif ka tirsan nakhla meel kaloo la yidhaahdo fardoolaydii iyo ciidamadii muslimiinta ka daba tegey garaa nebigu calayhi salaatu wasalaam abaa caamir alashcari ayuu awtaas u diray halkaasaanu kula dagaalamay waxaa la yidhahdaa xataa maca odaygii kala yaqaanka ahaa meeshaasi ku soo dilay baa la yidhahdaa oo ninkii la odhan jiray durayd ibnu simma odaygii taladii hore lahaa ee lahaa war raggan hadday jabaan dumar iyo carruuri celin mayse ka daaya abu caamir alashcari saxaabigaa la yidhaahdo isagu meeshaasi ayuu ku shahiidnimo qaatay abu muusa alashcari baa markaas sii qaatay calankii saasaa lagu jabiyey kooxda kan abu muusana waa kii markii dambe nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ee u weydiinayay inuu ilaahay u baryay fariin buu kuu soo dirayaa buu leeyahy waa runtii qiso aad u fiican abu caamir alashcari ee qisada uu ka tegay laakiin markaan iska soo koobno ilaahay rasuulkiisii ugu salaama buu yidhi istikfaarna allah ay weydiiyo ilaahay buu u baryay nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalkani xunayn ku saabsisnaa jabkaasi ayuu ku gebagaboobay qaybahoodii yarraa ee meelaha galayna waa lagu sii daray oo waa la sii jebiyey laakiin magaalada la yidhaahdo طaa'if may suurtogelin in si fudud iyada loo jebiyo aan maanta halkaa ku joojino wallahu aclam